bar ama baro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan ku tusin doonaa maanta sida Windows 7 loogu shubo luqadda Carabiga ee la soco. waxaa imaanaysaa start menu, kadib waxaad dooranaysaa control panel open, oo furaysaa control panel. marka control panelka furto, halkan waxaad dooranaysaa clock language and region, waxaad dooranaysaa change display language, midka hoose change display language ayaa dooranaysaa. kadib boxkan ayaa kuu soo baxaya. halkan waxaa ku qoran keyboards and language, luqadaha iyo keyboardka. to change your keyboard input language, click change keyboards, kan clicksine. kadib boxkan ayaa kusoo baxaya. halkan waxaa ku muuqata English United States, waa luqada ku jirta computerka Ingiriis. hoosna wax mataala. marka halkan hadaad fiirno waxaa ku jirta display language, hal luqad bes English lay ku qoran kartaa. add clicksinaya si aan ugu soo daro luqada Carabi. halkan waxaa ku muuqata Carabi, English, Chinese, luqado badan, wixii luqad jira international ah. kadib waxaan dooranaa Arabic language, suurada Carabiya, midkaas ayaan furaya. waxaa imaanaya buttonka sare plus, kadib waxaan dooranaa buttonka keyboardka. halkaas waxaan dooranaa midka ugu koreeya Arabic 101, Arabic 101 midka ku qoranta. kadibna okay ayaan ku dhufanayaa kligaasina. halkan ayaa ku arkaysaa sida ku muuqata waa lagu soo daray luqad Carabi computerkaaga. Arabic Saudi Arabia, hore English ayaa ku jiray, haddana Carabiga ayaa ku jira. labadaba waa ku isticmaali kartaa qoraal ahaan display language-ka. kadib markaa aad sameyso apply ayaa ku dhufanaysaa buttonkaas apply. hal hoos ayaa ku arki doontaa dhow luqadda, apply ayaa ku dhufanaysaa. marka apply ku dhufato kadibna okay ayaa ku dhufanaysaa. hadda apply active ma ujeedaa, okay ayaa ku dhufanaysaa. haddana midkan okay ayaa ku dhufanaysaa. marka hadda waxaa muhiim ah computerkaaga inaad restart ku sameysid. hadda luqadda Carabi way ku jirtaa, marka si oo active uu noqdo. intaas kadib waxaa computerka ku sameynaysaa restart. markuu restart kasoo kaco, waxa uu ku suurtagelin doonaa computerkaaga inaad ku qoran kartid luqadda Carabiga si fudud. marka hadda ila soco, waxaan sameynayaa restart aan diraa computerka. marka restart aan kasoo kacno caadi ayuu noqonaa insha Allah. Carabiga waad ku qoran kartaa. restart. mar labaad salaamantiin. restart kadib markaan soo noqono, waxaad sameynaysaa Microsoft Word, afuraysa documentigiisi waxa uu qortid Carabiga. hoose waxaad dooranaysaa luqadda, kligaasina English iyo Carabiga ku aragtaa. Carabiga ayaan dooranaa, ileen Carabi ayaan qoraya. marka aan qoro waxaan ku tijaabinayaa bismillaahi raxmaani raxiim camal. sida ku muuqata Carabi ayuu qorayaa bismillaahi raxmaani raxiim. marka waa kan maasha Allah. Carabi waa qoran kartaa, Englishna waa qoran kartaa. marka aan qorxino xoogaa farta maasha Allah aan doorto سويني وحرف check mark الله جديد aan ka dhigana maasha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. marka waa kan sidaas ayaa loo qortaa. waa kan ujeedaa indhahaaga ayaa macalin ku ah. casharkan waxaa soo diyaariyay anigoo ah Arabhayna. Thanks for watching. Subscribe, comment and rate. nabadgelyo.